ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo isugu jira burburin fariisimaha cadawga iyo baadhitaano dhinaca amniga ah ka sameeyay deegaanada Mubarak iyo Dar es Salaam ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanadan ayay nabadiidku ku dhibaateyn jireen dadka shacabka aan waxba galabsan. Howlgalkan ayaa intii uu socday ciidamada kumaandoosku waxay ku dileen 3 maleeshiyaada waxaana ku burburiyeen goobihii qaraxyada lagu soo farsamayn jiray taas oo lagu dhibaateyn lahaa dadka shacabka. dhinaca kale howlgalkan ayaa lagu soo qabtay horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasoo kale ah madaxii wardoonka ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo qaadigii maxkamadda ee deegaanka Mubarak iyo horjoogayaal kale. Bacsigan ayaa imaanaya iyadoo weli uu sii soconayo howlgalka sifaynta Al-Shabaab ay wadaan ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed. Waa Cabdillaahi Cabdiraxmaan idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed deegaanka Mubarak gobolka Shabeellaha Hoose.